madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maanta wuxuu la kulmay laba safiir, safiirka Turkiya iyo safiirka Suudaan. sidaad ka warqabtaan labada dalba saaxiib baan nahay, walaalaanu nahay, aad iyo aad ayayna noo caawiyeen intii burburka jiray iyo haddaba. marka laba safiiroo cusub weeye, hadday yimaadeen waxay u dhiibeen waraaqahoodii aqoonsiga madaxweynaha, waxaana laga wada hadlay sidii loo sii wadi lahaa xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Turkiya ka dhexeeya, oo madaxweyne farmaajo aad iyo aad uga hadlay min maalintii u yimid madaxweyne Erdogan Soomaaliya oo uu tegey barakacayaashii oo la afuray ilaa yoomina hada sida loo jecel yahay wadankaasi waxayna la qabteen. sidoo kale wuxuu la kulmay safiirka cusub ee Suudaan Khalaf Calaa Mustafa Babikir oo uu ka codsaday inuu howshii ay Suudaan u wadeen Soomaaliya halkeedii ka sii wado. Suudaan waa ogtihiin iyadana aad iyo aad ayay noo caawintay, ha noqoto xagga waxbarashada, arday badan oo Soomaaliyeed baa xagga jooga, sida muxuu ahaa jaamacadahooda ku jira, macallimiintooda halkan jooga, takhaatiirtooda halkan jooga. marka aad iyo aad ayuu ugu mahadnaqay.